daawadayaal warar degdeg ah ayaa waxay hadda ka soo dhacayeen magaalada Hargeysa ee Somaliland. Sawiradan aad arkaysaan waa suuqii weynaa ee magaalada Hargeysa oo gabi ahaanba gubanaya. Wararku waxay sheegayaan dab qabsaday cabaaro daqiiqada ka hor 9 kilomitir ayaa waxaa la sheegay in ilaahay hadda dabkaasi cid damise aysan jirin. Sawiradan iyo sidoo kale xogo dheeriya oo dadku inta badan waxay ku mashquulsan yihiin iyo sidoo kale dabdamiskuba balse ay u xakameyn lahayn dabkaas walow la sheegay inuu ku fidayo meel intaasi ka badan. Wararku waxay intaasi ku darayaan in dabku uu gaaray meherado ka fog oo markaasi leydhka oo uu sababayo in uu ku dhago dabka kadibna ay sii fido. Sawiradan waa kuwa hadda la soo qaaday isla haddana oo markaasi qiyaastii ka soo wareegtay 10 daqiiqo inuu dabkaasi socdo. waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala warajinay Ilaahay ka damiyo balse suuqaasi waa suuq halisa uu mar qura dab qabsado sida uga dama ay adag tahay. ilaa hadda dabka sida la sheegay ama aan ka helno warar xogaal ah oo hadda markaas Hargeysa naga soo gaaray waxay sheegeen in ilaa hadda dabkaasi qaybo kamid ah la xakamay balse uu fidayo oo ku sii fidayo meherada intan ka badan. Suuqa kale hadii aan sawir guud ka bixino suuq aad ayuu ballaaran yahay tusaale ahaan xagga Talasoomta oo kale ilaa Cadaani ilaa hotelka Harwanaag laga gaadho New Hargeysa qaybo kamid ah waxaa la sheegay inuu intaas oo dhan bays haysto oo uu ku jiro goobo noocaas oo kala waxaa la sheegay in waratadii dharka iyo sidoo kale meheradii carwooyinka ee halkaas ku yaalay in ilaa hadda ay gubanayaan ilaa laga gaadho 2 kilomitir ama 1 kilomitir ama 3 kilomitir oo isku wareega ayaa suuqani ku yaala oo waa suuq markaas samxad badan oo dadka ugu badan Somaliland ama Hargeysa ku nool ay ka adeegtaan dhinacan oo Harwanaag hotel laga gaadho xaggan Talasoomta oo Cadaani area-deeda waa ilaha ugu weyn uu dabkaasi hadii uu qabsado sida uu ku damay adag tahay. Waxa la sheegay dawladda hoose iyo sidoo kale dabdamiskuba in ilaa hadda ku bixinayaan dadaalo dheeriya sida ay u damin lahaayeen ama u xakameyn lahaayeen. Ka soo kordha halkan inaan soo galin doona la socda waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uga rajeynayaa in dabkaas weyn ee markaasi suuqaasi Hargeysa qabsaday daqiiqada ka hor in Ilaahay ka qaboojiyo loogu jiro baqtiinta dabkan. suuqii kiisuu meesha ka baxaysa suuqii wallahi dib weyn baa ka kacay ilaahay ka xeerno